السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال meel walba oo joogtaanba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dhambaal ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya u diray shacabka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inuu xisbiga BB ballanqaadkiisa barwaaqadaha wax yar ka dhiman yahay dalka Itoobiya dhibka ku habsaday iyo rafaadkana laga bixi doono shacabka Itoobiyana u dulqaataan dawladda inta ay ka gaadhayso guusha ay higsanayso sidoo kale kooxda TPLF ayaa qoraal ay soo saartay oo u dirtay midowga Yurub iyo beesha caalamka waxa ay ku sheegtay in ay TPLF guuleystaha kaliya ee dalka Itoobiya ka jira tahay marnana ayna dhici doonin inay dawladani dalka sii maamusho oo TPLF u baahan tahay taageero weyn oo laga siiyo sidii ay wadanka uga dulqaadi lahayd waxa ku habsaday sidoo kale TPLF ayaa waxa ay ku eedeysay maamulka talada haya ee dalka Itoobiya inay deegaanka Tigreega macluul iyo u baabiyeen jid kasta oo wax u soo mari lahaana ay ka xidheen sidoo kale dagaal xooggan ayaa waxa laga soo sheegayaa deegaanka Oromada qaybta uu xadka kale leh gobolka Axmaarada ee dagaaladu halakeeyeen sidoo kale TPLF ayaa dagaal xooggan waxa ay ka wada duleedka magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada sidoo kale qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida magaalada Candhuufo ee dowladdeegaanka Soomaalida ee galbeedka gobolka City ayaa laga soo sheegay dagaal xooggan oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan galab wanaagsan taariikhdu waxa ay ku beegantahay 7 bisha 9 2021 haddaynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dhambaal xalay soo saaray oo kula hadlayay shacabka Itoobiya ayaa waxa uu ku sheegay shacabka Itoobiya inay dulqaataan oo ay u samraan dhibka wadankooda ku habsaday ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay xisbiga BB inuu marna ka quusan doonin inuu hadafkiisa barwaaqa gaarsiinta dalka Itoobiya inuu gaarsiiyo xisbiga BB inuu wali wadadii ku toosan yahay midaysan yahayna kuna tala jiro inuu dalka Itoobiya dhibaatada uu ku jira ka saaro oo camaasirtan jamhadahan iyo balaayadan ku habsateena insha Allah mar dhow la soo afjari doono ra'iisul wasaaruhu si raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in xisbiga BB go'aankii iyo ballantii uu ka qaaday shacabka Itoobiya in wali tubteeda la saaran yahay dalka Itoobiya inuu barwaaqo iyo midnimo iyo guul gaadhana inuu wax yar ka dhiman yahay ee shacabka Itoobiya inay u midoobaan baa looga baahan yahay dalkooda sidii ay horumar u gaarsiin lahaayeen sidoo kale kooxda TPLF ee dagaalada xooggan kula jirta dawladda federaalka Itoobiya ayaa qoraal ay soo saartay oo u direysay beesha caalamka iyo midowga Yurub iyo wadamo kale badan oo adduunka ka tirsan waxa ay ku sheegtay in uu yahay guuleystaha kaliya Itoobiya maamuli kara TPLF ayaa waxa ay sheegtay inuu dalweynaha Itoobiya godweyn ku sii dhacayo dadka badbaadin karana ay TPLF tahay TPLFna ay ku taagan tahay guul weyn ay wadan badan oo ka tirsan dhul badan oo ka tirsan dalweynaha Itoobiyana uu gacanteeda ku jiro sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegtay in dhulka ay kaga sugan tahay gobolka Axmaarada ay maamul u sameysay sida deegaanada ay ku badan qoomiyadda qiimadka TPLF oo ah caqabada koobaad ee dawladda federaalka Itoobiya hortaagan ayaa markasta dhambaalka ay dirtay beesha caalamka waxay ka gadaa in ay tahay guuleystaha kaliya ee dalka Itoobiya xukumi kara hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo nin daayaro saaxada siyaasadda si dhib yar ku soo galay ayaa ilaa waqtigii uu talada hayay wuxuu la kulmay dagaal xooggan oo kaga imanaya TPLF hase yeeshee dalweynaha Itoobiya ayaa waxay sheegayaan inuu Abiy Ahmed TPLF ay yihiin dameer iyo labadiisii dhagood maxaa yeelay Abiy Ahmed aabihiisa koobaad waa TPLF tababarihiisa labaadna waa TPLF hase yeeshee waxaa la soo sheegayaa in ay waa sidoo kale waxa kala shacab weynaha Itoobiya sidoo kale waxa isweydiinayaan in ay TPLF iyo Abiy kala geeyeen siyaasad xumo haseeshe in wax aqli oo kale iyo maskax kale ku kala duwaneen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo TPLF la soo shaqeynayay in badan deegaanka Tigreegana
in badan ka soo shaqeeya isagoo taliskii sirdoonka ahaan jiray sida la sheegayo ayaa waayihii dambe uu ku soo biray siyaasadda deegaanka Oromada asagoo ka soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga Oromiya ka talinayay dhulkaasi. sidoo kale dagaalo xooggan ayaa waxaa laga soo sheegayaa gobolka Oromiya xadka uu la leeyahay deegaanka Axmaarada. TPLF ayaa lagu eedeynayaa inay dagaalka u bedeshay qowmiyadda Oromiya iyo Axmaarada. dagaalo xooggan ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhulka Oromiya Axmaara ee xadka ay kala yihiin magaalooyin badan oo dhulka ka tirsan Oromiyana inaan xalay laga seexanin. sidoo kale waxaa la soo sheegay diyaarada jawi hoose ku socda inay duqeymo ka geystaan dhulka tirsan gobolka Oromiya. gobolkan Oromiya oo jamhada badan oo Oromiya ka dagaalamayaan ayaa waxaa la soo sheegayaa inay gaajo badan ka jirto. sidoo kale jamhada xoreynta Oromiya ayaa waxay sheegtaa mar walba inay dhulka intiisa badan ee Oromiya iyadu gacanta ku hayso. hase yeeshee dowladda federaalka ayaan dhagjalo qusiinin sheegaysana inay iyadu dhulka ka taliso. caqabada koowaadna ay TPLF untahay TPLF si la iskaga dulqaadi lahaana inay laga shaqeynayo. sidoo kale dagaalo xooggan ayaa waxaa laga soo sheegayaa gobolka Axmaarada. TPLF ayaa subaxnimadii saakay dagaalo xooggan waxay ku soo qaaday deegaano badan oo ka agdhow magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada. TPLF ayaa dagaalo xooggan waxay ka wadaa galbeedka dalka Itoobiya oo ah gobolka Axmaarada ay dagaaladu halakeeyeen. shacabka Axmaarada ayaa waxaa la soo sheegayaa ku yar iyo ku weynba inuu qoriga gacantooda galay. farhiina ay ka baxday nidaamkii dowladnimada hase yeeshee Axmaaradu inay marayso istifaac qowmiyadeed ayadoo Axmaaradu ku eedeynaysa Tigraygu inay nooc qowmiyadeed u soo weerarin rabaan qowmiyadoodu inay qabsato qowmiyadda Axmaarada. hase yeeshee shacabka Axmaarada ayaa waxay ku tala jiraan inay TPLF iska xoreeyaan kuna celiyaan gobolkoodii iyo meesha ay ka soo duushay. dowladda Itoobiya ayaa waxay u taageertay tabarbaladahay in ay TPLF ka saarto deegaanada gobolka Axmaarada. hase yeeshee waxaa la soo sheegay TPLF inay maalin walba isku sii ballaarinayso dhur hor leh. sidoo kale gobolka Canfarta TPLF waxay ka wadaa dagaalo xooggan oo loo meeldayn oo shacabka aad loogu barakicinayo. TPLF oo dhul badan oo Itoobiya kamid ah isku sii ballaarinaysa ayaa la garanayay qaabka ay wax u wada iyo dagaalada iyo meesha ay taageerada ka helayso. TPLF ayaa la qiyaasaa in ay dagaal gelisay caruur yar iyo dhalinyaro aad u dayar ugu yaraan 1 milyan oo qof oo qowmiyadda Tigrayga ah inay qoriga qaadeen ayagoo markii hore qaab istifaacida ku qaaday. hase yeeshee xaalku uu isbedelay markay TPLF gobolkooda dib u qabsatay. sidoo kale magaalada Candhuuf ee dowlad deegaanka Soomaalida dagaal xun ayaa waxay dhaxmarayaan Canfarta iyo Soomaalida. Canfarta iyo Soomaalida dagaalkooda ayaa ugu yaraan bil qaatay lamana garanayo meesha uu ku dambeyn doono. dowlad deegaanka Soomaalida ayaa isdifaacid weyn oo dadka shacabka dhulkaas ku dhaqan ku difaacaysa ku jirta. Canfarta oo sidoo kale taageero weyn ka helaysa dowladda federaalka iyo maamulo kale oo la garanay ayaa iyaduna dagaal weyn ku haysa deegaanka Soomaalida. tan iyo kulanti dambe waxaan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.